They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيغاني سغالات oo ka mid ah duruustii aan uga maqdarnay duruus ku saabsan dacwada islaamiga iyo manhajteeda. waxaa nagu dambeeyay darsigii 8aad oo aan kaga soo hadalnay manhajka ifraadka ah ama ku salaysan xadgudubka ama ku salaysan quluwiga oo dacwo ahaan dhibka uu keenay iyo dacwo ahaan sida uu yahay munxarifka baan ka soo hadalnay. waxaan insha Allah darsiga aan ku qaadanaynaa manhajka asaga ah maadaama dacwada islaamku ay u istaagtay in bani aadamka guud ahaan la anfaco, bal xataa xayawaanaadka la anfaco, oo diinta islaamka waa naxariis sida Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. marka diinta naxariista ahayd oo xataa xayawaanaadka iyo maaragtay bani aadamka oo dhan oo kuwa xataa gaalada laftooda ayagoo gaaladooda ah in diinta ay ka faa'iidaystaan oo noloshooda iyo cadaaladeeda ay maaragtay ay ka faa'iidaystaan, ay ku hoos noolaadaan oo raxmadeeda ay helaan baa loogu talagalay. markii dacwadii noocaas ahaydoo xayawaan iyo xataa gaalo inay ka faa'idaystaan loogu talagalay, meesha ku dambayso oo nimanka inxiraafka ay geliyeen dhibka uu keenay iyo ujeedooyinkii dacwada laga lahaa in laga gaaro siday cagsi ugu yihiin baan darsigan insha Allah tacaala kaga hadlaynaa. saa la socotaan diinta islaamku 5 shay ayaa jira oo muhiim ah oo inay waardiyeyso ay u timid ama ay maaragtay ay waardiyeynayso oo maslaxadda bani aadamku ay ku xiran tahay 5taas shay adduunkooda iyo aakhiradooda. waxaa loo yaqaano alkuliyaat alkhams ama waxaa la yidhaha aldaruuriyaat alkhams. 5taas shay waxaa weeye diinta iyo nafta iyo maaragta caqliga iyo cirdiga sharafta iyo maalka weeyaan. 5taas shay weeyaan in 5taas shay marka la waardiyeeyo oo sida ugu habboon maaragtay laga faa'iideysto lagu intifaaco oo aan la khaldin ayay diintan u timid guud ahaan. waana maslaxadda bani aadamka ayaa lagu ilaalinayaa. ilaahi subxaanahu wa tacaala arraxmaan araxiim ah ayaa bani aadamka ugu talagalay in naxariistiisa adduunka ay helaan intaan la gaarin aakhiraba. marka 5taas shay oo muhiimka ah oo in la waardiyeeyo ay diinta u timid, in la hagaajiyo ay diinta u timid, manhajka munxarifka ah oo ku salaysan ifraadka oo ku salaysan quluwiga xaggee buu gaarsiiyey. runtii meelo badan ma aadayn, laakiin waddankeena oo kale ayaan dareemi karnaa dhaawacyada gaaray 5taas shay. xagga diinta maxaa dhib ah oo soo gaaray, xagga nafta dadka muslimiinta ah maxaa soo gaaray, muslimiinta maalkooda maxaa soo gaaray, muslimiinta cirdigooda iyo sharaftooda maxaa soo gaaray, muslimiinta caqligooda maskaxdooda maxaa soo gaaray. waxaan ka bilaabaynaa xagga diinka islaamka. dhibaatada loo geystay way iska caddahay markii laga soo qaado keli ah inta Soomaaliya ka dhacday oo aan maaragtay goobjooga loo ahaa. hadda meeshaan hortayda 6 qodob ayaa ku qoran, laakiin way ka badan kartaa. midda koowaad waxaa weeye tashwiihi suura, diinta muuqaalkeedii oo la shawaho, magaceedii la xumeeyo, taas ay ka dhalanayso in dadku ay nacaan. waana shay khatara diintan inay muuqaalkeedu fiicnaado oo dadku ay jeclaado oo dadku ay noqdaan mid diintan ku jira oo muslim ah iyo mid aan ku jirin laakiin qirsan wanaageeda oo aad maaragtay u xurmaynhaya oo inay xaggaa wax ka jiraan aaminsan baa lagu talagalay. marka suuraddii xumaata iska dhaaf mid aan ku jirin inuu soo galee, kii xataa ku jiray inuu ka baxa laga yaabo uu ka cararo. midda labaad waxaa weeye waxay nimankaanu ay keeneen maadaama wadankii ay maaragtay ay dhex joogaan oo wadankii ay dhibaatooyin dagaal ay ka wadaan in dadkii muslimiinta ah oo Soomaaliya ah
gaaladii ay maciin bidaan ama halna la noqdo shacab ama hala noqdo dowlad. haddii gaari la maciin badana waxaa weeyaan ugu yaraan dantooda ay kaa fushanayaan, waxa ay rabaan ayay kugu sameynayaan. marka in qofkii muslimka ahaa uu gaal marti u noqdo oo maaragtay amnigiisii iyo noloshiisii iyo caafimaadkiisii iyo wixiisii oo dhan uu halkaas la aado, uu u gacan galo, arrinkaasi diinta islaamka halis bay ku tahay. oo ugu yaraan qofka muslimka ahaa fikraddiisa ayaa wax ku soo biiraysa, gaaladu fiicana, gaaladu waxbayna tartay baa kusoo biiraysa. marka qofku feejignaantii iyo iska ilaalintii uu gaalada ka qabi lahaa ayaa meesha ka baxaysa, waana shay halistiisa laho diinta halis ku ah. saddexaad waxaa weeye dacwadii ayaa magaceeda la xumeeyey, muuqaalkeedii ayaa la xumeeyey, shareecadii iyo xuduuddii magacyadeeda iyo dabaqitaankeeda ayaa la xumeeyey. meelo fara badan oo dacwada islaamigaahi ay maxaanku irahaa ka socotay oo maxaanku irahaa laga akhrinhayey ama dadku aad iyo aad ay maaragtay uga faa'iidaysanhayeen ayaa istaagtay. irdo badan ayaa xirmay. dacwadii keliya waxay maaragtay ku ekaatay qorigooda inay la socoto oo ayagaas meesha ay joogaan dadka ay khasbaan, markay baxaanna dadku ay maaragtay si rabaan iska yeelaan. saasna sax ma aha. dacwada islaamka qancin iyo maaragtay iyo fahamsiin bay ku socotay intii la soo waday, oo dacwadani maaragtay Soomaaliya gudaheeda waqti badan bay socotay. waxa wanaag muuqda oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu galladaystay, hadday tahay fahamka diinta, hadday tahay dadkii iyo cibaadadii iyo shacaa'irtii iyo salaadii iyo masaajidii aad maaragtay usoo buuxsameen, hadday tahay dumarkii iyo xijaabkoodii muuqaalkooda fiican, waxaasoo dhan waxa lagu helay qori ma ahayn, dagaalna ma ahayn. marka in intaa loo bedelo mid dagaal ku xiran oo qori ku xiran laga dhigo, oo markii qoriga uu joogana dadku ay maaragtay ay ku munaafiqeeyaan, ay dadku maaragtay ay tukadaan, masaajidda ay galaan, markaa baxdiidna lagu lacnado, arrinkaasi diinta iyo dacwada dan uma aha. marka dacwo ku xirnaan jirtay dadka maskaxdooda iyo qalbigooda in loo bedelo dacwo koox ku xiran oo qori ku xiran oo dagaal ku xiran, arrinkaasi dacwada oo dembi laga galay weeye. afraad oo xagga diinta waxaa weeyaan waxay sabab u noqdeen muslimiinta ugxantoodii iyo deegaankoodii iyo meesha ay maaragtay ay taalay dadku maxaanku ay yaaleen in dhib weyn loo geysto. waxaa loo yaqaano baydat almuslimiin, muslimiinta baydadooda in la burburiyo bay nimankaana sabab u noqdeen. haddii marka baydadii iyo ugxantii iyo deegaankii ay burburaanna dadkii waa kala yaacahayaan. haddii la kala yaacana hadda markaa yani qof yaacay oo maaragtay yani qaxooti noqday, qofkaasu diintiisa se u waardiyeysanayaa, se u cibaadaysanayaa, se ugu dhaqmahayaa. maxaa yeelay socodka iyo safarka si ahaantiisaba inuu cadaab yaha baa la sheegay. nabigu sal alla alay waslm asagii lahaa safarku waa qidcatu min alcadaab. maaragtay axadkii hurdadiisa iyo maaragtay iyo jiifkiisii iyo maslaxadiisa iyo nidaamkiisa ayuu maaragtay u saameynayaa. qofkiin hadduu safarka aado uu dhamaysto dantuu lahaa ha soo noqdo isla markiiba. maxaa yeele qofka muqiimka ah oo degan cibaado iyo barnaamij iyo nolol socota ayuu maaragtay ayuu sameynaya. laakiin qofka safra oo xataa ganacsi xataa aadahaya ama meel kale aadahayahay, inta musaafirka yahay barnaamijkiisii diimeed wuu kala daadanaya. marka hadda kaas waa kii safro caado u safraya. qofka qaxootiga noqday oo wadankiisa ka qaxay oo caruurta jiidahaya oo baahanhaya oo haraadaya, qofkaasi diintiisii iyo cibaadadiisii siay noqonayso waxay la tahay waa la qiyaasi karaa. marka dadkiiyo maaragtay qaxa oo fitno maaragtay u banbaxa ayaa ka dhalatay. shanaad waxaa weeye waxaa loo yaqaano tahriibka, wadankiiyo laga cararayo oo gaar ahaan dhalinyaradii wadanka aan fici lahayd, ummadda aan fici lahayd ay maaragtay tahriibahayaan oo banaanka ay ku shumahayaan ama badaha ay ku daadanayaan ama maaragtay lamadegaamada ay ku maaragtay balaayo ku cunayso ayaa ka dhalatay. waa runtii maaragtay waa qeyb si gaar ah in la tilmaamo u baahan weeye. inkastoo guud ahaan la wada qaxay, laakiin tahriibka iyo waxaa ka dhacay runtii dhacdooyin aad iyo aad naxdin u leh
ayaa ka dhacday oo qofkii muslimka Soomaaliga ahaa inuu naftiisa halaago oo meel lagu quusto lagu baabaayo asaga laftiisa uu ka war doono bay ku khasabtay. marka yani way halaagsameen, way baaba'een, waa lagu xadgudbay, qaarkood waa la dilay, dumarkii gabdho badan baa maaragtay la kufsaday, gabdho badan baa ku xiran maxaan ku rahaa xabsiyo wadamo maaragtay gaala ah. waxaasoo dhan meesha laga soo cararay iyo dhibka yani ka taagan ayaa sabab u ah oo nimankaasi ayagu maaragtay ay calankeeda ay sidaan. lixaad waxaa weeye dadkii ama wadanka gudihiisa ha joogaan wixii ku haray ama kuwii qaxootiga aaday ha noqdaan, waxa weeyaan hay-aad ayaa loo gacmo galay. hay-aadkaas wadanka gudihiisa ka shaqaysanaya, qaxootiyaasha jooga oo inay dadka waxbaraan, iskuuladooda, caafimaadkooda, barnaamijkooda, tawjiihintooda aada iyo aada ummadda u dhexgalay, kuwaasoo afkaarta ay fidinayaan iyo waxa ay rabaan ay tahay waxa mar kastaba ummadda dhibaya ay tahay. marka muslimiintii Soomaaliyeed oo hay-aadkaas iyo ururadaas gaalada ah u gacan galay, oo ururadaasi wax kasta ay faragelinayaan, ay dumarkii shiranayaan, oo odayaashii ay shiranayaan, oo dhalinyarada ay shiranayaan, oo intaasoo magac ay isticmaalahayaan, in marka wadankii uu noqdo meel baylah ah oo iska dayacan bay sabab u noqdeen. hadda hay-aadkaasi waxa ay wadaana diinta dhaawac ay gaarsiin karto waa malayn kartaa. taasi waa xaggii diinta weeye. haddaan u nimaadno xagga nafta, ayadana naftii in la ilaasho loogu talagalay oo xurmada lahayd, naftii ilaah subxaana wa tacaala caabudaysay, naftii diinta wax taraysay, naftii ummadda wax taraysay, ayadana maxaa laga yeelay? kow waxaa weeye naftii ayadana waa la dilay oo naf la gooyey, waxa loola haray ma ay jiraan. taqriiban 9 qodob ayaa nafta la xiriirtay dhibka la gaarsiiyey. naftoo la dilo oo toos loo dilo oo ay gacantooda ula tagaan, arrinkaas aad u dhacay, waana la yaqaanaa. ama qof ha u dileen, ama dadka yani koox koox ha u dileen, ama ha qarxiyeen. waxaan u dambeysay dhibkii weynaa ay ka geysteen maxkamadda Banaadir oo dad masaakiin oo Soomaali ah oo meesha iska dhooban oo kala nooc ah in la baaba'sho maaragtay kadibna ilaahay looga xamdiyo. waxay tilmaamaysaa sida nafta bani aadamka muslimka loo qiimo tirahayo. marka kaasi waa maaragtay waa dil loola kasay. midda labaad, dil badan oo ayagu ay leeyihiin looma kasin ay leeyihiin, ama waa lagu khaldamay ay leeyihiin, isna waa jiraa oo dad fara badan ay ku tageen. waxaa kaloo jira dil maxaanku rahaa maaragtay ayagu ay dilayaan oo ay leeyihiin maxaanku rahaa dadka aan dilayno wixii ag joogay ayaguna dhiigooda waa noo xalaal bay leeyihiin. oo maalan haddii xataa maaragtay yani dad gaalo ayaga agtooda ka ah ay dilahayaan, wixii meesha jooga iyo wixii raacay iyo wixii qarxiyey wixii oo dhanba way israacin hayaan. ayaduna waa sabab kale wey. afraad waxaa weeye waxay sabab u noqdeen in markay dagaal sameeyaan ciidamada wadanka joogaay oo afrikaanka ah iyo waxa lamidka ayaguna meesha ay ka dagaalamaan, oo markii meesha la isku dagaalan hadda shacabka miskiinka ahaa uu ku baaba'o oo dadkii muslimiinta ahaa dhib weyn lasoo gaarsiiyo, ayadoo loo aanaynayo nimankaas ayaa meesha jooga ama xaggiina maxaanku rahaa waxbaa laga soo tuuray iyo waxa lamidka ah. afraad waxaa weeye dad baa ku dhintay yani qaxootinimada markay qaxeen ama ay sii socdeen ama ay sii baxahayeen ama tahriib hayeen, nafta dhimanaysa oo dhibkaa ku dhimanaysa oo maalan ama maaragtay awaayeel ah ama qof kaloo iska xanuunsaday ah oo meesha lagu daryeeli lahaa ka tegey, naftaa dhimatana laftooda sabab bay ku yihiin, qeyb bay ku leeyihiin. midda kale waxaa weeye noloshii ciriiri noqota oo maaragtay qofkii muslimkaa kii xataa joogay oo aan bixin noloshiisii wuxuu cuni lahaa iyo caafimaadkiisii oo ciriiri gala, taas ay ka dhalanayso nafta bani aadamka daryeelkay u baahan tahay in la waayo. marka qofkii jirada wax lagu daaweeye ma laha, kii xanuunsan kii maaragtay cunto gaara u baahan, wixii oo dhanba way dayacan yihiin. marka naftiina haddii wax ku noolaan lahayd hadday weydo siday ku noolaanaysa waa ciriiri. midda kale waxaa weeye dadka oo la gaarsiiyo dhib aan dilka ahayn ka sokeeya, qofku la dhaawaco ama maaragtay maxaanku ra gacmihiisii iyo lugihiisii iyo wax gaaraan,
ama yani lixdiisii lixaad maarata qofkii waaya ayadan qayb bay ka tahay maxaa qofka la dilo waa dembi qofka oo nicmadii ilaahay siiyey oo lixdiisa lixaad ahaydna waayeen ayadana dembi kala weey marka ayagu ama dagaalkaas qofka ha ku waayo ama qofka intay qabtaan ayaga oranay xuduud baan oogeynaa oo xuduudaas maxaanku oraa sida ay ku sugnaatay iyo maxaanku sida loo xaqiijiyey aan laga fiirsanaynin la iska fududeysanayo oo sida qofka la dilayo loo fududeysanayo ayaa waxaa loo fududeysanaya qofka in maaragtay xad lagu oogana toddobaad waxaa weeye yani qofka muslimka oo lagu dhibo cabsigelin cabsigelintu lafteeda waa dembi waana xaaraan mana banaana in qofka la dilo iska dhaafe xataa la cabsigeliyaa shay bannaan maaha in xataa laga naxiyo diinta islaamku ma ogola in xataa la xagto ama wax xaganaya suuqa lala maro ama xataa maaragtay masaajidka lala yimaado nabi sal ly slam wuxuu ku yidhi maaragtay haddii axadkiin uu wadada marayo ama suuqa marayo ama masjidka imaanayo isaga oo maaragtay gamuuna wata gamuunkiisa afka ha qabto si uusan qofka muslimka ah ugu xagin nabi sal lay sl mar waxaa dhacday asagoo musaafira iyo yani saxaabadiisa meel bay degeen marka nin saxaabi oo jiifa ayaa maaragtay alaab uu lahaa ama xarig uu lahaa ama ul uu lahaa ayaa laga siiba hoostiisa ninkii marka wuu naxay wixii buu waayey markaasuu xoogaa maaragtay si uu maaragtay u naxay nabi slam wuxuu yidhi maxaa dhacay waxay idhaaheen yaa rasuulallah waxay idhaaheen waa la kaftamaynay nabigu waa diiday sala allahu alay wasalam marka qofkaas laga nixinayo oo wuxuu meel ku ogaa inta laga qaado hadhow naxahaya ayaa la diidayaa nabigu sal allahu alay wasalam waa isagii yidhi laa yatanaaji ithnaani duuna alaakhar fa ina dalika yuxsinuh laba yaysan faqin oo qof kale aysan ka faqin maxaa yeelay faqaasi qofkaas wuu murug gelinaya marka xataa faqa ayaa la diidaya qofka in xataa laga faqo maxaa yeelay su-aal baa ku dhalanaysa talow maxay sheegahayaan maxay ka hadlahayaan maxaa lagaaga faqahayaa waxaas baa qofka muslimka ah inay qalbigiisa galaan baa loo diidan yahay maxaa yeelay qalbi ilahi subxana watacaala inuu caabudo lagu talagalay inuu cibaadada ilaahay iyo tacdiimka ilahay u firaaqoobo ayaa lagu talagalay in lagu mashquuliyo walwal iyo warbahaar looma baahna marka qalbigii noocaas ahaa kuwa argagixinhaya oo cabsi gelinaya dembi weyn bay nafta muslimka ay maaragtay ay ka galahayaan sideed waxaa weeye tahdiidka iyo cabsigelinta dadka ay cabsi gelinayaan oo qofkii si ayaga u raaco ama ayaga uga boqo in dadkii la cabsi geliyo si maamulka iyo jiritaankooda ay u sugaan runtii arrinkaas arrin saxa maaha dadka muslimiinta ay xurmay isku leeyihiin haddaad doonayso in lagu raaco oo lagaa dambeeyo wixii lagaga dambeyn lala imow ummadda waxtar ummadda u khidmee laakiin awood iyo kii aan raacin baan dilahayaa oo qof madax maaragtay yani hadda markii xoogaa la joogaba qof madaxa go-aan baan soo tuurahayaa waxaa ummadda meel ma gaarsiinayaan waxna ku tari mahayaan sagaalaad waxaa weeye qiimo tirka la qiimo tiray nafta bani aadamka nafta muslimka la qiimo tiray oo nimankaas runtii ay hormood ka yihiin saa la socotaan runtii dhib badan baa soomaaliya ka dhacay dhib badan ayaa maaragtay loo geystay qofka muslimka soomaaliga ah waa lagu xadgudbay waxay soo socotoba maaragtay kuwii u dambeeyey dad la oran jiray mooryaan ayaa jiray oo qofkay dilahayaan intay dilaan hadhow ciddiisu ama odayaashiisu ay keeni jireen xoogaa yaroo lacag ah ayay keeni jireen oo maaragtay bacmadow lagu soo qaado ilaal maaragtay la yidhaaho hebel bacmadow oo kale ayaa loo keenay marka waxaan ka wadaa taasaa u dambeysay oo xataa mooryaantu qofka ay dilaan waxbaa laga heli jiray waxbaa ka soo noqon jiray maarata bacmadowgaas ayaa lagu qabay laakiin nimankan waxay keeneen barnaamij ah in qofkii la qiimo tiro oo xataa bacmadowgii xataa waa la gabay garamaysid oo qofkii aan qofku dilaya asagoo waxba aan ka baqaynin oo xataa in xataa aan hadhow la dacweeyo ama hadhow ciddiisa loo tago ama hadhow in ciddiisu ay xoogaa yar bixiyaan xataa ayadii maaragtay waa laga baxay marka qiimo tiridii meesha ugu dambeysay meesha ugu xumayd ayay nimankaani nafta muslimka gaarsiiyeen maxaa yeelay afkay soo duubanayaan wayse soo qarinayaan ayagoo ka wada waxaanu meel loo raacdo iyo cid samaysaba yaa la garanin taasuna waa khalad weyn
oo qofka muslimka laga galayo ciddii wax samaynaysaa waa inay tahay cid la yaqaano waxay u samaysay iyo sababteeda iyo waxa jira in la ogaado weeye laakiin maxaanku iraahaa cid wax samaynaysa waxa ay samaynaysana in mas-uuliyaddeeda ay qaado ka dhuumanaysaa diintu ma ogola haddaa wax samaynaysid oo ku qanacsan tahay ay kugu saxan tahay banaanka iskeen maxkamad keen warka caddee halagula doodo halkaasi ka baxaysaa laakiin waxaan aada qarinaysid sidii hore loo yiri waxa qurun ku jiro weeyaan marka qiimo tirada qof yani in la qiimo tiro qofka muslimka ahaa oo dhiiggiisa la qiimo tiro oo xataa bacmadowgii la waayo oo qofku markuu qof dilahayo waxba uusan ka baqaynin wadada khatarta ayaga ayaa jideeyey wax kastoo sameeyeen ayaga ayaa mas-uul ka ah oo markaas ama ayagu ha sameeyeen ama cid kale ha sameeyeen in dhiiggii la baylihiyo oo muslimiintii dhiiggooda rakhiis u noqdo oo ay soo alifaan wado la samaynayo wado la qaadahayo qofkii qaadaana qofku rabo oo dilahayo wax mas-uuliyad aan uusan qaadaynin haddaan u nimaadno xagga caqliga saa la socota caqligu maar waa shay qaali ah waa wax bani aadamka xayawaanka ay kaga duwan yihiin weeye walidaalika diinteenna muqadaska way waardiyeysaa way ixtiraamtaa way xurmaysaa sidii ku wanaagsanaan lahaa iyo falankeeda gashaa marka caqligii in lagu cayaaro oo afkaar khaldan la geliyo oo qofkii bani aadamka ahaa wuxuu samaynayo caqliga ayaa asaas ku ah wuxuu samayn wuxuu asagu maaragtay ku fakeray ama uu fahmay oo la fiican weeye marka qofkii suluug fiican ka imaan maayo haddii maskaxdiisu ay khaldan tahay marka waxyaalaha khaldan maanta aan u jeedin waxaa ka dambeeya waxa weeyaan caqligii ayay nimankaani ay khaldeen oo ay macluumaad khaldan ay ku shubeen oo maaragta waxaa loo yaqaano albidac alcaqadiya bidcooyin caqiide ku salaysan caqiide khaldan oo ku salaysan dadka muslimiinta gaalaysiintooda dadka muslimiinta dhiigooda la banaysto dadka muslimiinta ahoo xurmada ay lahayn laga qaado maskaxda noocaad ku shaqaynaysa waxaa laga filan karaay waxyaalaha hadda dhacahaya aada u jeedaan weeye marka caqligii xurmada lahaa oo qofka bani aadamkaahi tasarufaadkiisa iyo wax uu samaynayo xakamayn lahaa haddii la waayo haddii qofkii marka waxaa ka imaanaya iyo waxa uu samaynayaa waxay noqonayaan waxyaalo lala yaabay noqonayaan oo lala fajaco oo su-aalo badan ka yimaadaan bay noqonayaan oo natiijo xun dhasha bay noqonayaan marka hadda waxaan la yaabanahay natiijooyinka xun oo noo muuqmuuqda su-aalaha badan oo la qabo waxaana la fajacaya o dhan waxa u sabab waxa weeyaan caqligii ayaa la khalday oo sidii loogu talagalay iyo toosnaantii iyo hagaagii ilaahi subxana watacala uu la rabay ayaa laga leexiyey markaas wuxuu noqday caqli ay ka soo fulaan ficilada aan u jeedno oo diini ahaan iyo caqli ahaan maslax ahaanba khaldan haddaan u nimaadno xagga maaragtay yani cirdiga qofka muslimkaa sharafta uu leeyahay magac uu leeyahay in la xurmeeyo la ilaaliyo ayaa ka mid ah waxyaalaha maaragta yani waajibka ah nebigu sal alla alih wasalam markii u dambeysay oo muslimiinta ula dardaarmahayey xajkii caanka ahaa oo loo yaqaano xajatulwadaac nebigu sal alla alih wasalam aada buu ugu celcelishay xaaraannimada nafta xaaraannimada maalka xaaraannimada qofka muslimkaa sharaftiisa wuxuu ku mathelay ama maaragtay uu ku tusaaleeyey xaaraannimada iyo xurmada ay kacbadu leedahay xurmada maalmaha muqadaska ay leeyihiin xurmada ay maaragtay makaankaas iyo bilahaas ay leeyihiin iyo zamankaas marka dhammaan xurmooyinkaas o dhan oo la isku dardaray marka la isku geegeeyo culayska ay leeyihiin nebigu sal alay wasalam ayuu wuxuu saaray nafta iyo maalka iyo qofka muslimka cirdigiisa marka muslimkii magaciisii iyo sharaftiisii xagee bay maanta maraysaa waa la gaalaysiinayaa haddii qof la gaalaysiiyey maxaa u harayba xadiid baa lahaa maaragtay muslimka oo maaragtay la lacnado ama la gaalaysiiyaa waa isagoo la dilay oo kale wey bay ka dhigan tahay muslimkiioo la yihaaho waa khaa'iniin la yihaaho maaragtay muslimkiioo la yihaaho gaale u shaqaynayaan muslimkii oo gaar ahaan culimmadoodii dadkoodii waxgaradka ahaa la durahayo wax laga sheegahayo maaragtay bani aadamka maxaanku ra way kala xurmo badan yihiin ama way kala maaragtay darajo fiican yihiin marka meel dadkii culummada ahaa oo ahludiinka ahaa la dacninhayo ama la gaalaysiinayo oo laleeyahay waa khaa'iniin cid ku badbaadaysa ma jirto
tan kale waxaa weeye cirdiga gabdhaheena muslimaadka ahaa oo inay fitnoobaan oo dayacmaan loo bandhigo weeyaan. dadka muslimiinta hadday isku meel degan yihiin oo wadankooda ay joogaan way isweheshadaan, way iskaalmeeyaan, way iswaardiyeeyaan. laakiin markii la burburo oo la kala qaxo oo qolo kasta ay meel aado oo gabdhaheena ay meelahaas aan ku dayacmaan, haddii cidla laga helahayaa markaasaa la hadidayaa ama la kufsanayaa ama la boobayaa ama intay wadamo gaalo tagaan ay afkaarta gaalada qaadanayaan, markaasay xurmadii ay lahaayeen, xishoodka ay lahaayeen ayay waayahayaan. marka gabdho fara badan oo Soomaaliya ku maaragtay ku waardiyeysan lahaa oo ku sharaf lahaan lahaa oo maaragtay ku xifdisanaan lahaa oo xurmo ku lahaan lahaa markay ay qaxeen oo gaalo u gacan galeen way isbedeleen. maxaa yeelay cid waardiyeynaysa iyo cid taqaana ma jirto. marka wadanka la joogo la yaqaanaa waa inay heblo wiilkan gabadhan waa inay hebla wiilkaanu maaragtay waa hebel waa la yaqaanaa. marka asaguna bulshada taqaana buu qofkii ka xishoonayaayo maaragtay waxbuu reebanayaa. laakiin markii qofka laga tuuro oo la geeyo meel wadan gaalo ah oo la geeyo tuulo ku taala Mareykan ama tuulo ka taala maaragtay Yurub la geeyo, qofkaasi mujtamac uu ka xishoonayo ama mujtamac waardiyeynaya ama bulshada uu heshanaya waa bulshadee ma jirto weeye. marka waxa cirdi iyo sharaf dayacantay waxa maaragtay gabdhaheennii ku dhacay iyo dhallinyaradeenii dayacmeen oo ama xataa qaarkood gaaloobeen baa la sheegayay ama maaragtay xumaadeen. waxaasoo dhan dadkii qixiyey oo inay wadankooda usoo noqdaan sababta ku ahaa ka ah ayaa maalug ku leh. midda u dambaysoo ah xagga maalka oo sharaftiisa aan garanayno iyo qiimaha uu leeyahay. maxaa yeele wax kastoo la samaynayo maal bay u baahan tahay. marka xataa aad tukanaysid dhar aad ku tukatid, dharku waa maal, makaanku waa maal. marka xataa cibaadadii ayaa xoolo u baahan. marka xoolihii noocaas ahaa oo xurmada lahaa oo nabiga sal allahu alayhi wasallam uu yidhi laa yaxilu maalu mri'in muslimin ilaa bitiibi nafsihi, qofka muslimka xoolihiisu xalaal ma aha ilaa inuu asagu uu maaragtay asagu raalli ka yahay ma ahane. maxaa laga sameeyey? waxaa dhacday in dadka muslimiinta ahaa lagu farad yeelo xoolo oo la yidhaha xoolahaas baa idinku waajib ah, ama la yidhaha waa zako, ama la yidhaha jihaadka iyo maaragtay ayaad ku taakulaysaan oo lagu khasbo baa ka dhalanaysay. waxaa imaanaysay in xoolo la khasbo si aan rasmi ahayn. marna maamulkooda ayaa maaragtay xoolihii khasbanaya oo nin maamul ah ama magac maamul leh ayaa dadkii ka qaadahayay. marna qof magacaas iska weheshanhaya oo la iska baqahayo oo hadda maaragtay ummadda maaragtay dullaystay ayaa iska qaadanaya asagoo xataa kuwii kale aysan ogeyn magacaas maaragtay laga baqahayo oo ummadda cabsigelinta ummadda la odhan karo dhufaanay ayaa magaciisa lagu adeegsanayaa. marka xoolo aan rasmi ahayn oo xataa kuwii madaxda ahaa ama maamulkooda aysan ogeyn ayaa lagu qaadanayaa. saddexaad maxaan ku iraahaa in dadka lagu farad yeelo waxyaalo fara badan oo meelay aadahayaan iyo cidda qaadanaysa aan la garanaynin. dhibaatada la abuuray iyo khawfka iyo cabsida iyo qaxu wuxuu keenayaa muslimka in maalkiisa dayacmo, ama waxbuu ka tegahayaa ama waxbaa laga dhacahayaa, waxbaa ka lumahaya. fursadihii xoolihiisa uu maaragtay kaga faa'iidaysan lahaa ama ku qalacsan lahaa ayuu waayahayaa. midda kale waxaa weeye dagaalada ay wadaan iyo waxa ay maxaanku rahaa ay kharibahayaan hanti badan baa ku baxaysa. dad badan ayaa hantidooda ku lumaysa. guryay duminayaan, baabuur ayay maaragtay baabi'inayaan. haddii qofkii xamar arkay baa arkay inta maxaanku rahaa wadooyin la burburiyey, inta guryo ay burburiyeen oo ay laftooda ay burburiyeen oo ay dalooliyeen ama ay ka dhigteen meel maaragtay dhufays ah. qof guri iska leeyahay oo ka qaxay oo ka maqan in la dego oo la burburiyo oo laga dhigtay dhufays oo la isku dalooliyo yaa ku idmay. mid kale waxa weeye waxay sabab u noqdeen burburkii ka dhacay xamar in badan oo kamida oo dagaaladii ayagu ay wadeen oo ayagu sababtooda ay lahaayeen oo nimankaas Afrikaanka ay ciidamadaas ayaga dhex marahayay iyo kuwa dowladda wixii ka dhacay ayaga sabab u ah. maxaa yeelay waxa kale waa la xallin karay, ayaga ayaa xalkii diiday, ayaga ayaa musaalaxadii diiday, ayaga ayaa war waxaan joojiyay diiday. marka markasta bilaabidda iyo waxa la celin lahaa ayaga ayay ahaayeen. marka ayaga sabab u ah wixii marka ayagu ay sameeyeen ayaga sameeyay.
wixii cid kala samaysan ayaga ayaa sabab u ahoo joojin waayey marka wixii ka dhacay oo dhibaatada halkaas oo xoolo la waayey ah ayaga u sababa marka meesha waxaa ku cad dhammaan shantii shay oo diinta waardiyeenaysay in manhajkaas qulubiga ku salaysan ifraadka ku salaysan uu dhaawac weyn gaarsiiyey oo meesha ummadda wax la tari lahaa diin ahaan iyo nafa ahaan iyo maal ahaan iyo maskax ahaan iyo cirdi ahaanba wax la tari lahaa waxba lama tarine intay haysteen bay ku waayeen diintii wax badan bay waayeen caqligoodii wax badan baa laga khalday xoolo badan bay waayeen naf badan oo aalaaf mu'alafa ah ayaa la waayey sharaf badan ayaa luntay ilaahi subxaana wa tacaala ummadda muslimka ah gaar ahaan soomaaliya allaha caymiyo oo maslaxadeeda adduunya aakhiraba allaha u hagaajiyo wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus.